ها هنقولن توريدي بري محكمة اللي جاي لها واتنا محو واكوانا وريا هذيك يا إيدين يير يا إيدين مقعاب محاو سميسن محكمة ضرورتي إذا إيدو التلفزيون إذا عالم كل ساعة إذا بريها السبب هقول نقولنا قانون كأوه جان سما دستور كي نكى أضاق هاي أبوان كهاي تمجرع ما مسبس له هاي بس هل كان حكمة ده وين كجري دستور وحرق إنك عالك كل عيو شيء جيوان كوكل صون هذا آمنة dadkii hore ugu soo heshiiyay mushkiladan ayadoo aanay jirin dastuurka la sameeyay si waxa imaad doono suurtagalka ay xal ugu noqdo qoortaha suuranin ceelka waa laga soo saaraa laakiin adoo meydayaan laga soo saarin aad iyo aad aan markaan ugu mahad celinaa waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliyeed oo annagu aan ka mid nahay walwal badan aan qabnaa waxaan walwalka ka qabnana dadka Soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab daran yihiin ama colaad u taagan yihiin ma aha waxaan walwalka ka qabno waxa ay madaxda maanta joogto sida u dhaqmayso oo qaanuunku ugu dhaqmayso oo dawladnimada ugu dhaqmayso waay madaxweynaha hadda ka horna waa u sheegay waa fariinta haddana mar kalena waa u farayaay dila Soomaaliya haddii laga soo baxo nolol qurux badanaa jirto nolol qurux badan oo sharaf badan oo dadkaagu ay ixtiraam ku hayaan oo maxaan ku iraahdaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaa si fiican uga soo baxdo haddii laga soo qoor qabto laakiin ma lihid intaas fursadaa kuu furan dadkan dad hadda muxuu ahay sida aad ku haminaysaan iyo adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dambiga iyo qaab darrada laga galayana ha ka gelina kuwa gada la geeyo hala soo celiyo dadka gada jooga hala heshiiso dadka gada jooga aniga madaxweynaha markaan ahay diyaarada inta qaataan u tagay waa tagay garbaharayda maanta la isku dhex fadhiyaan soo dhex istaagay dadkan soo dhageystay maxaa dhib oo qabtiin weliba waqti ay duruufo adag ay ku jiraan oo abaara ay jir colaad ma jirin isma dileen qoryo isuma haysanin duruufo gaar iyo waxa abaaraa jiray sidii intay la eg tahay xaddigooda inaan ani dad inay ii sheegaan ma aanan aqbalin diyaarada inta qaataan ka degay aan soo dhageystay kadibna wixii loo qaban karay oo awooddu isaamixiisaan qabanay dadka gado degan ee sharafta badan inay inta kala qaybsamaan qaar cararaan xuduudda ka gudbaan qaar kale ay magaalooyinkooda inta ka cararaan duurka aadaan kuwa reer gada aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyay ee ayaguna ay meesha muxuu ahay dhibaato dadna u geystaan ayaguna ay dhibaato ku dhacdo kuwii reer gada ah in badan oo kamid inta la soo qaaday in xamar la keeno la yiraahdo adeerkiina daaficaysiin waxaasi xigmad waa dhaqan nin xikmadi ka dhamaatay dhaqankiisa waa madaxweynaha xikmadda ka dhamaatay madaxweyne walaalaha aan nahay annaga xikmad kuule aan gacan qabadkaadaan leenahay joog wadada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaaha ay dad badan qar fataq u yeesay ugu sii hadaafayeen ayagoo u arkaa laaca aragtay laaga moogtahay joogtaa laaca fiirino quruxda badan ee 20 sano 30 sano dalka ina ka talisa ah xagga kaaga muuqdo kaaga muuna qarar badan ka sokeeyo oo laga dhacay ha ka dhicin kaliya hadaad ka dhacaysid warbadiyo joog badiida orod ka dhacam ku dheena laakiin annaga dhamaan nala dhici rabtaa ay nadhig dawladnimo iyo dimuqraadiyada dadka Soomaalidu dhaqan ahaan ay u leedahay dimuqraadiyada taariikhda laga hadlay inaan muxuu ahay dal dimuqraadiya dad dimuqraadiya dhaqankeena iyo spiritka nolosheena ay kamid tahay dimuqraadiyada dad qable oo inay isduleystaan iyo in la duleystay intaba aan ogoleyn waa ayagoo dawladda inta ku soo duulaanay maageen say rabaan inay ka yeelaan laga yaabo sida ay rabeen qaarkeed si u fiican dalkan iyo dadkan xataa inay ahayd laakiin lama talagelin tala kuma laguma siin war waxaanaan fiican say idin tawaanu ma idin la fulinaa lama dhihine ayadoo la duulaayo oo maxaan ku raadin taangiyo iyo diyaarado iyo adduunyo la wataa la soo kordhigay war maxay ahaan waxaan intay noogu yimaadeen waa wixii ogaantaa ka dhacay muxuu ahaay beledkan iyo dalkan dadka marar badan waxay is weydiiyaan
war adduunyadii faraha badneed ee weyneed ee 36 dawlad lahayd ee dalal kale oo daris oo waaweyn lahayd yaa dadkan yacsigeeda wiilashan yaryarka ee shabaabka maxay yacsiga dhihi waayeen xaqiiqada waxay u baahan tahay in dhabta la fiiriyo ma ogtahay maymuun biyo islaanta la dhihi jiray ee shabeellada dhexe ku nooleed abwaanada ahayd xikmadeedii waaye masaari geed ma goysee geed kalaa ku gooyo gaal hadduu islaam wadana ma soo galeynay dhahday waagii talyaaniga uu dalka soo degaayo waay shabaab qaarkeennaa ku daaban ma ogiye saasna ma yeeli karaan laakiin waa masaartii daabkii geedka qaarkiis annaga aan ku daabnayn waaye dhibkana haysto kaas waaye ayadana indhaha hadda noo soo furmo waaye daabka waa ka siibanaynaa masaar dhiliq hadday wax dumi karto kabacdi la arka ayadana aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan mar kale u mahad celinaa dadkan muxuu ahay caawa waqtigooda qaaliga ama soo bixi dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay cabsi ma jirto dhib ma jiro dal dumaya ma jiro ninkii qalloocan asaa qalloocana dhaafaa la dhaha wuuna na dhaafaa ninkii qalloocan madaxweynaha fursad uu haystaa wadadaas uga leexan karo wadada uu ku socdaa wadadii fiicneed oo barbar socoto tartiib waa ku leexan karaa wadada fiican waa u sahlanta waa u dhowdahay inuu ku leexdo midda fiican oo dadkaan oo dhan ay shalay u sacbinayeen war heer dhahay ilaahay amarkiisa madaxweynaha shalay markii la doortay ee magaalada isla guguceysay ee xabadaha la ridayay ee meel walba laga dabaaldegay reer hebel ma ahayn maanta waa khaldantaan u galiyaa muxuu reer hebel u noqonayaa caqligana looga cayaaraya sow maaha war shalay markuu prime ministerka ahaa ee ayadoo la qaylinayo jidadka loo taagan yahay oo baxayay reer hebel ma ahayn nin Soomaali oo hogaamiye Soomaaliyeed oo ahaa maalintii la dooranayay ee anagu aan raali ka soo noqonay u soo hambalyeynay ee beledkaanina isla gugucay oo meel la kala istaagan la waayay oo shabaabku xataa dadka ay cabsi geli waayeen ay celi waayeen jidka u soo baxeen marxabada iyo kelmadihii waaweynaayeen oo ay dhacayeen reer hebel ma ahayn hadiyay Soomaaliyeed oo ahaa maanta hadduu qaldamay waa qaldantahay la yiri miyaa muxuu ahay reer hebel kuwa saas dhahay miyaa ku hayb ahay madaxweynaha reerkiisa may ahay jufadiisa may ahayn dadkan inta fadhiyay iyo inta la midka magaalada degan soo ma ahayn maanta haday banaanka u soo baxeen xabad ma afka inta laga geliyaa la leeyahay reer hebelad iyo reer hebelnimaad wadin miyaa la leeyahay war waxaas xigmad ma aha aqli ma aha meel ay daruuro ku leedahay oo ay ku hagaagsan tahay ma laha walaalkeen maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaan leenahay raalli ahaaw caqliga ha kuu soo noqdo sakhradda xukun jaceylka ay ha kaa degto dadkaaga u soo noqo fursadaad weli haysataa inaad mar kale lagu doorto madaxweynihii taariikhda ugu horreeyo 2 jeer la doorto inaad noqdo fursadaa haysataa laakiin marna ma dhacayso wadada aad ku raadiyo haysa inay dhacdo maba dhacaysaba anaa kuu sheegaayo waa ciil waa ka bariyo waayo ma dhacayso ma jirta dhinacaas dhinaca kale bidix u jeeso inta tiraahdo dhinaca kale aad dadka Soomaaliyeed markale waa idin mahad celinaa walaalaheen meel kasta dadka Soomaali joogaanana dhageysanana maqlayna waxaan leenahay dhibaato ma jirto waxaan isku haysana waa dimuqraadiyad waa dawlad wanaag waa nabad waa muxuu ku raad dal dhismay cadawgiisa kaliya oo qabno aan hor istaagnay oo 4 sano la soo dhaafay aan waxba laga qabanin iska bulaalay cashuurta qaadanay sida hadda loo sheegay dalkii meel walba haysto waa ka xumaa madaxweynuhuna maalin kasta wuxuu ku faanaa ciidamada dhisna karaan dhisna ciidamada dhisna mitirka lagu cabirayo waa maxay inay uniform ku qurxoon qabaan qoryo waaweyn sitaan miya mase dalka inay cadawga ka dhiciyaan ka xoreeyeen waa tuulada la xoreeyay 4 sano la soo dhaafay hal sheego waa challenge gareynaa madaxweynaha waxaan leeyahay noo sheeg tuulo hebel maalin hebel shabaabka laga bixiyay yiraahdo kuwa oo xor ah ay qabsadeen sheegi karnaa tirinina cawadan halka waa laga sheegay marka ciidamadeenu waa qurxoon yihiin waa dhisan yihiin caalamkii lagu kaalmeeyay waa mahadsan yahay kuwii nagu taageero waa mahadsan dadkii ka soo shaqeeyay waa ku mahadsan yihiin laakiin midi afle oo fiican oo laga soo shaqeeyay waa sidii saxdeed looma isticmaalo walax qalad ah lagu isticmaalo neef inay gowracdo mididu ay xalaalayso waa sax waa nin muslina oo aliika aliyahay in halowda laga gilo lagu dileen waa isla mididii waa neefkii loogu talo noogu gowraco shabaab nooga xoray ciidamada halowda naga gelin aan leenahay madaxweynaha banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa loo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka midnahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan ha u diyaar garoobaano
waa mid nabadeed waa mid maxaa tusaaleyn waa mid dimuqraadiyadda iyo xukun wanaagga iyo wadajirka Soomaalida iyo dawladnimada Soomaalida lagu badbaadinayo cod waaye codka macquulka oo reasonka ah madaxweynuhu ha dhageysto codkaas haddii la dhageysan waaye maxaa ku soo xigo imaanay la dhageysanayaa waxa waa la yaqaanaa Soomaaliya waxa la yaqaanaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodka 3FREE